maanta wajeer ayaan joognaa anigoo ku hadlaya magaca dowladda Kenya iyo magaca Capital Markets Authority iyo maxaan ku yiraahdaa qolooyinka la shaqeeya ama ay maaragtay ay mas'uulka ka tahay maanta waxaan imaadnay wajeer waxaan u imaadnay inaan aan sameeyno tababar ku saabsan qaabka maaragtay maaliyad loo sameeyo amaba mataqaanaa wax loo xanaaneeyo maxaan ku dhahayaa af Soomaaliga ya dib maxaan ku yiraahdaa lacagaha si loo aruursadaa si loo maalgeliyaa si loo shaqeeyaa waxyaalo sidaas ah Capital Markets Authority shaqadeedu waxa weeye laba shay waaye mid ugu horeysa waxa waaye in ay meelaha dadka maalgelinta lacagaha aruuriya oo sidii pension funds ka ama noqdeena maxaan ku yiraahdaa investment banks ka ama stock brokers ka ama exchange dadka shares ka gata wayna stock exchange maanta wuu nala joogaa halkan uu joogaa wajeer dadkaas ayaga say ku shaqeeyaan xoolahaada ay ku badbaadaan dhaqaalihii lagu tiragalo ballan lagu galin lagu hela shaqadooda waa intaa waxa kale oo sameeynaa oo laba in lagu soo dara waxyaalo ummadda ay lacag maalgashan karaan oo maaragtay programme waxaa kamid hadda oo shayaalka hadda ummadda ay maalgashan karaan waxaa kamid wax la yiraahdo ZD Trader oo Safaricom maxaan ku yiraahdaa telefoonka ku jirta oo sharesna lagu gadan kara maxaan ku yiraahdaa waxyaalo kale lagu gadan kara marka macnooda maxaa waay adigoo jooga gurigaada waxaad iibsan kartaa maxaan ku yiraahdaa waxyaalo lacag ku keenay sameyn kartaa waxyaalay ayahay waa wax oo mataqaanaa already jira laakiin waa wax maaha maanta intaad lacag gelisaad bari lacag ka sugayso maaha waa wax inaad maanta lacag gelisa markaad 20 sano gaarto aad hubtay inay lacagtaas iyada gaaraysa wax badan soo waliba khaasatan dadkan train greenin waa dhalinyaradana waxa weeyaan inay bartaan qaabka lacag loo aruursado qaabka mataqaanaa waxyaalo loo geliya dadkii hadda xoolo kaligood la gelin lahayd xoolo bariyahan waa fiican yihiin dhibka ma jira ama xoolo ama dhul ama maxaan ku yiraahdaa bacsharo oo badeeco la gadaaya iyo waxyaalahaas way fiican yihiin wax dhib ma jiraan laakiin waxyaalo kala jira oo fahamsanayn marka waxa ayaga aan bari haynaa su'aasha badi soo laabaneysana oo qof kasta madaxiisa ku jirtana waxa weeyaan arinta waxa ma sharciga muwaafaqsan tahay taas ugu weyn badi dhibka jira waxa waaye wax badan ayaa la sheegaa oo mataqaanaa waxaan sharciga jibinayaan ama tan ma jibinaysa dadka badoodana garan maayaan ribo macneeda maxaa waaye marka waxyaalaha hadda aan ka shaqayn hayna annaga waxa weeyaan in la helo wax sharciga waafaqsan waxyaalo sharciga waafaqsan qaarkood waan keenay kuwa kala oo mataqaanaa soo socdana way jiraan wadankana ina laga fahmo oo madaxweynaha biri hore wuxuu saxeexay in la sameeyo guddi oo culimo oo shaqadooda ay tahay inay maamulaan arrimaha iyada sidii hadda maxaan ku yiraahdaa sidii qaadis court oo kale arrimahaas ayaga arrimaha investment-ga iyo xalaalnimada ay fiiriyaan marka على حال maanta waxaan ku faraxsanahay inaan dhalinyaradaas boqolka aan train gareyno oo fahmaan qaabka investments loo sameeyo tan birid ku xigtana waxaa jira dadka businesska iyo professionals ayaa ayagana boqol qof ayagana laga train gareynaa birito marka arrimaha waa arrimo cusub arrimo adduunka ka jira waaye adduun weynaha ay ka jiraan London ay ka jiraan Middle East ay ka wada jiraan maxaan ku dhahay Indonesia iyo Asia ay ka wada jiraan Indonesia Malaysia Singapore waxaan kulli ay ka wada jiraan marka wixii ayaga ayaan dadka u soo bandhigaynaa halkan wajeer inay fahmaan khaasatan dadka ahlul cilmiga oo maartay wax akhristay kuwa kalena way baran doonaan ayagana way la soo qabsan doonaan markay kuwa soo baxdo marka aad iyo aad waxaan leeyahay maartay arrimahaas ayaga waxa laga faa'iideysto aan leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi ujeedada maxay tahay ummadda muslimiinta dalka ku nool iyo qaasatan dhalinyarada maanta horta dawladda xaggeed dadkan shaqada ka raadinaya dawladda shaqada xaggu ay yaraatay shaqo ma laha dawladda dad yar un bay qaadan kartaa haday dadaashdii kala waa si yaraan haysaa marka ina shaqo la raadiyo waay shaqadana becsharada ay ku jirtaa internetkan la soo baxay waxyaalahan in laga faa'iideysto oo maartay becsharadan la gala bedelkii laga sugi lahaay maxaan ku yiraahdaa waxyaalahan kala ayadana muhiim waa taas markaan ka baxo anaga laba shay baan ka shaqeynaynaa mid ugu horeysa qofka ugu horeey oo muslim ah qofka ugu horeey oo Soomaali ah oo chairman ka noqda Capital Markets ka ayaan ahay marka waxaan hadda nuxdu u fadhiyaa arrimaha finance-ka ku saabsan wadanka financial sector-ga iyo dadka regulate gareeya oo sida CBK, CMA, RBA, IRA, SASRA waxaan kulli
KCF KDIC kulli ayaan maaragtay naxdu u fadhiyaa marka waxaan raadinahaynaa oo hadda ugu weyn dadkeena si ay ku fahmi lahaayeen financial services taas hadda ugu weyn taasaan rabnaa inay dhacdo midda labaad oo inay dhacdaan rabnaa waa inaa la hela maxaan ku dhahaa product oo sharciga waafaqsan products oo sharciga waafaqsan taasaa muhiim ah marka tiin waan ka shaqaynaynaa policy oo national level ah oo finance policy oo Islamic Sharia compliance finance policy oo arrimahan mainstreaming wax la ku samaynayo oo caado ka dhigay madaxweynaha Bridwet wuxuu saxiixay in la helo board national Sharia board tii ideed way nagu filnaan weysay iyadoo la habeeyaan isku duduwnay anagoo financial sector regulators ka oo ministry finance ayna xukmeen ayna weydiiyeen tii waa la dhameeyay hadda finance ministry ga lagu celinaya sifa ay policy ga isaga ku soo baxa marka waxaan rajo ku weynahay in wadanka mataqaanaa laga helo nidaam ay muslimiinta ay sector-gan ugu participate gareeyaan ama ugu qayb qaataan maxay hadda waan ka maqannaa badi waxaan ugu cararnay because of maxaan ku yiraahdaa arrimaha ribada ayaan ugu cararnay nidaamna waa jira su'aal kuma jirto so tiideedan ka shaqaynaynaa waxyaala number 2 investment opportunities investment-gi jiray in laga faa'iido oo anagana xalaal products oo wax dadkan anfacaya la keena magaranay maxay loodii lagu sameyn karaa cawsa lagu sameyn karaa cawskan la beerayo taa lagu sameyn karaa way faham soo ma xagara lagu sameyn karaa wixii tayba kulli waa lagu sameyn karaa waana global markets waxay ku anfacayaan dadkan middle people ka ka bixinayaan adiga adduunka dhamaal ku expose grain it exposes price transparency wax la dhacay of products ayaa dhacay